وعم جهده شاركة ماذا حقيقة دقن وي إيقا بحية إيقا سيوة شاركة maxaa kugu dhacay شاركة ماذا حقيقة دقن ayaal maa tahay marka hore maa guluusaa furtid ما أنت أديك أي بدادي ما هنا وقعن قال لها واهي وابحي halkee aadee وصع عيارة nin weyn hataa ma ciyaalkaa la ciyaaraysaa xishoon mees أنا قبل عيال وين هذا أنا هاي marka hore kaala quraaco ما كان صع عيار كدي بعن قراعنا واهي وابحي كان كل فها buluuga واهي هاي هذا كل فنا فيري واكو دفتي بوجوين قادن أنا له waryaa boolaa ciyaalka maxaa la ciyaaraysaa anigaa kula ciyaaraaye إنك استوى أنت وكل عيارة إسكان بوجو ما يستا gooja anigaa keensanaa waryaa yariisow intaan rubaho goojo iigu soo gad soco waryaa boolaa هاي goojooyinkayga waa lii keenayaa soo baxay soo raac أنت كوراعة soo baxday soo baxnaa filimkan iyo filmo kale oo waan soo ciyaaraynaa indhay films ما كان مالو عيارة إيشك haa ciyaartii jaceylka aan labadeena ciyaaraynaa يا عيارتي جالك وما هي عيارتي جالك أنا أقول لك ما مقلن بعيارتان واهي وابحي ما حقول لك lugtaa iga murgacatay hadda biyaan u soconaa waxaa dib haween loogu sameeyey indhayfilms.com dhegayso korkay kukuleel ayaan ka dareemay qanda ay hayso amalaynaa waad gabdhisaa soo baxaan qabaysane के बाद नहाएंगे हाँ? अरे ये तो अपनी पारो है। ए पारो! बेशर्म कहीं का। ए पारो! आते। पक्का मैं तुझे मारूंगा मैं तुझे मारूंगा
ए पारो तू रो रही है चल घर चल 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 घर चला أفكاري إسكو أمانة waxaan ku weydiinaa yaa u sheeg dadka xaafadda inaan adigu ku canaanto أنا wax ma sheegin mago adle ama ka fagtay daaq u sheegtay ama ku dhaara in tare buway ay salaamo hadda waa ku sii deynayaa laakiin caalamka guriga maanta ku taalaa anigaa ku siinayo hoo fur afka hoo maaragtay sida ayay ii jeceshahay adiga maxaa u istaagtay adiga inta maxaa ku keenay aniga xagga dhaxana igu soo qabatay intaan imaaday aa ku beertadaadi ma aqaano meesha igaaga dhacday laakiin haduurdi macana ay hayso kaale adigana soo seexa maalintii nasiibkaaga ayaa fiicnaad igaga badbaadiyay laakiin maanta gacanteedaad ku jirtaa aan aragna nasiibka ku badbaadihayo haddii aad ii soo dhawaataan waa idin garaacayaa iska jir haddaad ii soo dhawaataan waa idin garaacayaa ya war garaaca nacabka maxaa ku hel boolaa aniga baabuur ayaa aniga saaran baabuur aniga ma aqaan baabuur ayaan saarnaa isoo raacday wiilka waa wiil weyn sida carruurtii u hadlayaa sidaan ma lagu dhala mase hadduu noqday boolaa aniga ma dhalintid doore sigoo dhaawaca ayaan meel ka soo qaaday
kadib isbitaal ayaan geeyey isbitaalkii wuu ku caafimaaday isbitaalka markuu ku caafimaaday kadib waxaan arkay sida ciyaalku hadlaayo haddana wuxuu kala ogyahay ma jiraan haddaan gartay jirrada ninkaa hayda jugti ku dhacda darteed ayaa maskaxdu wax ka gaareen marka sidaa darteed waxuu xusuusan kara ma jiraan shan jirkiis wuxuu samay jira keliya ayuu xusuustaa Titore, hadda kadib boolaa sidaan lama ahaanaya. ma sheegi karo magaalada geey dhakhtar fiicanna loo geeyo laga yaaba in maskaxdu usoo noqoto caana macaan loo gataaye marti waa la soo maamulaa meelaas doorahaye waryaa caano leh galaas caano barxaysi mid nadiifisii hooy adi maxaa sheegaysaane caanihii maa baraxay aniga caana barax hadid rabin caana boor la qafiya xagga yaalaa xagga tag tartiibkaaga gado ani heer ilmoodaan ahay caanihiina barax lee waaye inkasino magaalada waa iska halawday caano baraxa ayay ku leeyihin waa caano nadiif ah waa khayaanada maad iska daydaan oo wax nadiif maad gadadaan baarakuulo kaaliye dadweynaha kaaliye waxaan ii sheegaye ninkan ujeedin heer ilmoodaan nahay caana ahaynaas waxaa siri caanihiina barax waaye usna moos waxa lees gadan oo bolol eh hadda dhulkan ku cubiye yaa ka soo bixiyaa usiga maxaa ii garaacday anaa kuu sheegaaye wixiin kuu garaaci gandi a ku dhawee magaaladan ujeedid waa barxan tahay dadweynahan ujeedid waa barxan yihiin dawladda naftirkeed waa barxan tahay ad naftirkaa waa barxan tahay ani caanahee keliya see barixiis aad u sheegtay baarakuulayaw sababtaasaa ana dhulkaas musmaar camalku kabiy aniga barax mani asagaa dhahay barax waaye waraan us waa dhihi karaa barax shartiyaas waa hastaa laakiin ad ma dhihi kartid barax waaye afkaam soo mari karaan ku leehe horta hadda adi kaali hoosaa igi jirtaa waraa idinka iska baxa shaqa maleedihi shaqa yeeshta waraa lamadii isqabaan minkood agalaan kii baagamundeena nasiibkiisa kaali ad horta waxaan ku weydiyaa ad caana ma cabtido biyana ma dhantido waa dhawaan biyaha iyo caanaha markii caloosh taga ma isku labmaano barax ma naqahaayaano ii sheegba waa naqanaa barax banaanka yaali iyo barax gudaha ku jiro baariyo waa runtaada iga raalli ahaa waa khaldamay baariyo horta ad awoodtadaada kuu soo duceeysaa khabrigaaga soo duceeysaa dhulka engegaas ahay haddii isbajaq ahalay dhubtid dhahdid adoo koomba camal u buusantiyaa kasoo bixileed hadda waa kutuugaa kaali caana iga gado adoo waa kumayahay ubeeg barakalaaba saaciw caano baraxa iga daa caano nadiif aysi maxaa sheegaysaa halo Baara ayaa kula hadlayso. haya gabartay Boola ayaa isbitaalka daawo ahaan u keenay. Adigana dhaqso ku imaaw. waan isku soo digaa ma ahe si camal maliska keenaa leh isbitaalka marxab ana imaaha waa imaaha dhibkeed ba ahaad say wax u jiraan ma aqaano asigoo dhaawacaya dadka xaafadda keenay meeloo ku dhaawacmayba iyo qofka dhaawacma lama yaqaano wiilkayga soo noqon doonaa qalbigaaga khayr u sheeg igaarkaa waa fiicnaha anaa kula joogaa Titore soo wiilkayga noqday wiilkaaga hadda waa baarnay waxna kama dareemin waa in baaritaan labaad lagu celiyaa takhaatiirtoo dhan loo wacaa qarash badanaan ku kacayo may Titore ali daawe baas inta ka dilqrid anaa kuu keenaa makasino aad igaarkaan la ku dadaal marxaba taliya aniga waxaa ila roon feelkaan oo dhan in la iska xiro waayo shilka uu baabuur ku galay meel ah ninkan inuu nool yahay waa u dhintaan umalaynaa waa laga yaabaa ninkaas inuu dhimeeyey laakiin wax walbay taaba faylkaa lama xirayo Laga yaabo inuu dhintay ninkaasi. Laakiin haddii dhimashadiisa shaki ku jirto, waxaa sharci ah 3 sano inuu furnaado feelkiisa. Soo sax ma adeer? waa sax gabadhaydii laakiin waxaad ogaataa gabadhaydii in 3 sano 3 bilood nooga dhiman tahay isbatoore gabadhan waxaa la dhahaa baarti waana gabar joornaalisti weyn ah barasho wanaagsan Wanaagsan. tuugada iyo burcadka sharciga kama cabsadaan ee waxay ka cabsadaan joornaalistayaalka Tuugada kaliya ma aha. Askarta qaarkoodna journalistiyaasha ka baqaan. waa sax gabadhaydii askarta way ku jiraan kuwa aan daacad ahayn laakiin waxaan aaminsanahay kuwa aan daacad ahayn waxaa laga yaabaa in adig kaa baqaan si aad joornaalka aad ugu soo qorto falalkay ku kacayaan awgood
waaya taliya waan baxaynay adiga dhegayso waxaan ka sheekaysanaynaa oo keliya kuwa aan daacadda aanan ahayn adiga intee u ordaysaa may tali sidaas ma waxaa jirta shaqo muhiim ayaa ii taal waan baxaya fadhiista gabadhaydi waxaad ii sheegtaa shaqadaada sidee u socotaa si la yaab leh ayay u socotaa kuwo wasiire isku sheeg ah iyo kuwo kaloo madax isku sheegyaal ah ayay waxay rabaan inay iga joojiyaan shaqadayda joornaalka ah waxaad ii sheegtaa dadkan aad jaraa'id ku soo qoraysid adiga kama cabsatid runtii aniga shaqadayda kama cabsado laakiin aniga waxaa ila fiican ninka ciidanka oo waddankiisa u dagaalamaayo ninkaasina wuu awoodaa in uu gacanta ku soo dhigo cid allaale ciddii hor istaagta sharciga hadalkaaga khayrada leh wuxuu soo xusuusiyey aabbaha geesinimadiisii aabbaha wuxuu ahaa nin geesi ah oo aad iyo aad u karti badan shaqadiisa joornaalistinimona wuxuu ka jeclaa ninka ciidanka oo waddankiisa u dhimanaya asigana wuxuu ku dhintay shahiidnimo sheekadan baa nala tagtee maxaad ii sheegi rabtaa adiga haa akhbaar cusub aan ku waday adigaa sheeko dhadheerna geliye ma ogtahay miyuu aa taleefon ii soo diray tababarkii oo ciidanimadana waa ii soo dhammaatuu dhahay mar dhowna wuu imaanaya waa arrin farxad leh haddii asiga tababarka u soo dhammaaday adiga ayuu hadda kuu bilaabanayaa aabbay hadduu ku arkuu kugu farxayaa taas waa fikraddaada waxaa laga yaabaa aabbaha hadduu aniga arko inuu iga heli waayo taas ma anfici karto aabbahaygu waa nin aad iyo aad u fiican welina ma dhicin waxa aniga ka codsad uu ii diido isaga wuuna i jecel yahay ma xumo waxaad ii sheegtaa aabbaha iyo adiga maahe yaa kaloo neel joogo adeerkayga iyo walaalkayga iga weyn dadkaasna haddaa isbarataan waa dad aad iyo aad u fiican wayna ku soo dhoweynayaan war shaaribo kasta iyo ger kastaad soo yeelatid war yaaniga ima khayaani kartid nacsiyow war badeeca 5 bilyan ayaad naga dhacday ma waxaad moodayda inaan ka harayo mase waxaas tiri ragga waxba kama qaadi karaan wasakh igralaw waa qaldanahay igralaw waa ku baryaa lacagteeda dhan gurigaygaan ku iibinaa waryaa waa ku gudaya waan la soconaa gurigaaga inay dawladda la wareegtay waxaan kaloo aan la soconaa in dawladda ay ku raadinayso nin ciidankoo dhan raadinayo goormow lacagteen noo gudaa ma anagaa beentaad naga dhaadhicinaysaa stag maxaad aniga noo moodtay igraleho muu noqonaa igraleho lacagta xaaraanta iyo lacagta sida xun lagu shaqeeyo qofkii ku dhaqmaa si xun baa u dambaynaysa laakiin annagaba kuwa wax ma dhaanno kalsooni buuxda ayaan isku qabnaa adiga ayaa baabi'iyey kalsoonidayni adigaana ka jawaabi doona hadiyadda aan ku sii doonno rana hal mar keliya cafi waa ku baryaya cafi cimrigayga dhan adaan kuu shaqaynaya cimrigayga intaan noolahay adaan kuu shaqaynaya igu shaqayso waa ku baryaya rana anigu waxaan jeclaa inaan shabeel korsado laakiin ma jecli eeyaha inaan korsado abaay miimaaday abaay miimaaday fadhiisa balkaale maanta aad ayaan u faraxsanahay aabbo markuu dhimanayo wuxuu ka dardaarmay inaa mustaqbal fiican yeelatid abaay darajadan oo dhan madaxaada ayaan ku helay maxaa dhacay oo maanta saan dhan iigu faaninaysa adiga
maadaama aan ahay walaashaada kaa weyn midaan hadii ahaan ayaan ku siiyey maadaama aad tahay walaalkayga iga yara aniga dadaalka intiisa badan adigaa mutaystay abaay waxaan xasuustaa si aan darajo ku yeeshto ayaa mustaqbalkaada aniga ii baabi'isay micnahayga waxaan ka wadaa aniga ilaa iyo hadda adiga wili ma guursan maanta hadalkaaga aad iyo aad u waaweyn yahay intaa ka soo baratana adiga abaay waxaa jirto aniga hadda caruur ma ihi hadda waa weynaaday wixii sax iyo wixii qaladna waa kala fahma aniga ninka weynaadayow safar dheer ayaa hadda ka imaaday waxaan u malaynaa baahi inay ku hayso baahi way haysaa raashin isi raashin fiican ayaan ku siinaa markaad aragtid si fiican ayaan u sheekaysanaya waayahay nakeene taliya waxaan ahay isbatoor ani varma waad fiican tahay fariiso mahadsanid waxaan u malaynayaa waajibkaaga qaran in aad soo dhammaysatay haa taliya hadda kiis ayaan kuu dhiibayaa waxaa la doonayaa in aad kiiskaa ku guulaysato waayahay waana kan faylkii 3 bilood kadib wuu xirmayaa waxaana la doonayaa ka soke in aad ka baaraan degtid amarkaagaa jir taliya buula hoo caana cab aniga caana macabaayo ayay maxay iga tagtay aniga keligay maxay iga tagtay aniga caana macabaayo marka hore caanaha cab anigaa kuu geynaaye waay waa cabbaa laakiin adiga ha ii tegin waayahay horta caanaha cab oo kula joogaaye bishmaa soomaha kani waa ku salaama banyu waa kaa qaaday baya hay askari aba tahay ani hore iguma sheegin markaan isbaranayn tababar ayaan ku jiray haddana askari ayaan noqday maantana waa maalinta kuugu horeysa shaqada askarnimada hambaliyo mahadsanid aabo wiilkan waa wiilkii aan hadda ka hor kaaga sheekayn jiray waa salaamantahay waa kaa qaaday wiilkay beryaa aad ayay ku ammaanaysay laakiin askari markuu gurigayga soo galay waan ka naha aniga laakiin askarteena anaga waxaa ka cabsada tuugada adiga nin sharaf leh ayaa tahe maxaad ka cabsanaysaa middaas ayaa dhibaato leh sidoodaba askarta maanta jirta way qasan yihiin garaadadoodana waxay ku isticmaalaan tuuganimo kulli ma ahe waa in yaroo kooban marka sidaa ayaa nagu kaliftay inaan cabsano dadkeena sharafta leh sidaan askarta ugu cabsano tuugada ugu cabsano maadaama aan anigu askar ahay ma ahna adigu inaad iga cabsataan maxaa yeelay aniga waxaa ii dhalay satar barakaash wuxuuna ahaa journalist weyn haddana walaashayda ayaa journalist ah waan ku faraxsannaa reerkaaga aad nooga faallootay beryaa ninkan waa markii ugu horreyda gurigayga yimaado gudaha gey cabitaan see waayahay aabe soo bax badan waxaan kula socodsiinaa bishmaa inuu nool yahay yaa bishmaa maa nool siday ku dhici kartaa intee ku aragtay waxaan ku soo arkay isbitaalka weyn ee dowladda waxaa laga yaabaa inaad soo aragto qof ninkaasi u eg war arrintaa hadday run tahay waa inaan wakti aanan iska lumin oroda soo hubi hadday arrintaa run tahana xabaalaha ku dar boola isku day inaad wax soo xasuusatid waxaa kugu dhacay shil baabuur oo ku dhiman gaartay walaal waxaad isku daydaa shilkan suu ku ahaa adiga ma shil baabuur weyn aad saarneed oo ah mase baabuur yar maskaxdaada daji tartiib soo xasuuso macadi waa isku day inuu ku dilo adiga maxaad yahda idinku yaa idin soo fasaxay naa iga leexo
kalkaaliso dhaqso qolka qalin ku geey Waya titore. soo dhawaad isbatoore aniga ayaa ku yeertay boola ayaa kugu tuuga waxay damceen inay dilaan markay maqleen askarnay soo socotana way carareen yaa way ninkan waa nin maskiin oo tuulo laga keenay daawo loo keenay nin maskiin oo daawo loo keenay yaa cadow ku noqon karo kabax batoore ninkan hadduu soo naaxo aniga telefoon ii soo dir haddana ciidan ammaankiis sugo ayaan ku wareegayaa anigana waa baxay sidaa ula soco waayahay taliya auditore iyaarkay xaaladiiska waran be boolaha hadduu wuu fiican yahay waadna arki kartaa axsanto maxaa usoo boodi boolaa nabadaale ma aho mago aniga boolaa mahi magacayga waa bishmaa askari yaa joog ajoojin soco marsi kalabka sheeg ninka badeecadan leh sheeg mise waa sheega maxaa dhacay isbatoore horay ayaan qofku ugu soo diray iima imaan adiga hadda si kedis ayaad noogu timid nolosha laba waxyaabo ayaa kadis ku yimaado dhimasho iyo wakhtiga xumaado randuuta koor xabsiga ayaan dhex dhigay haddana adigan ku xirayaa isbatoore bishmaa ayaa doonaya inuu aniga xiro marka waa inaad la hadashaa war hoo taliyahaaga la hadal
Hello. isbatoora bishmaa randid taakuur ayaa wuxuu kugu soo oogay dacwad ah in aad si xun u garaacday si uu kiis been ah ugu soo ogo raanaa Taliye. Ninkaas Raana ayuu la shaqeeyaa. war wuxuu doonaa hala shaqeeyo ayagana waxay doonaan ha ka shaqeeyaan waxaan amar kugu siinayaa ninkaas raanaa ma soo xiri kartid waana amarkayga Waayahay taliye. hadda ka hor ayaa isbatoore adigoo kale gurigayga yimaada wuxuuna isku dayay inuu xiro waa ila hadla keliya maalintii labaad meydkiisa filinjeerka cisbitaalka la geeyey Kaabo adiga waa qaldoontay. Waxaan ku sheegayaa aniga ninkaas oo kale ma ihi. Ha igu qaldoomin aniga. Riyada beenta aad riyoonaysidna iska daa. Waxaad ogaataa aniga shiishkayga tuuga kaliya ma saarana wuxuu saaran yahay ninkaas tuuga ah wixii la shaqeeya iyo xulufadiisa oo dhan labiska ciidanka oo aad ku booteynaysid adiga annaga raggeena wuxuu noo yahay sariirahan ku seexanno faraashka la saaroo kale hadda adiga waxaa kuu roon in aad annaga nala shaqaysid noloshaada dambana aad raaxaysatid hadalkaad igula hadashay waxaan ka dareemay in wasiirada iyo madaxda gabadhaada ama naagtaada madaxdaas iyo wasiiradaas ay u noqon jireen firaashkooda sariirta la saaro kale waryaa intaan ereydan mas-uul aan ka ahay ha isku dayin sharciga inaad ku ciyaartid haddii kale noloshaada ayaan ciriiri gelinayaa aabbo bal eeg gabar xun oo journalista ayaa joornaal kugu soo dacaynaysa gabadhaas way fiican tahay iswaalkaasna waxaa ka keenay askariga xunka ah oo bishmaha ayay isku hadlaynaysaa anigana waxaan ahay aabbaha tuugada ugu weyn aniga daroogada ayaan ka ganacsadaa cid ganacsigii hor istaagi kartana ma jirto waxaana ahay ninka ugu weyn xagga daroogada ganacsigeeda gabadhaa way dadaalaysaa laakiin waxayna la socon in aabbeed aniga aan tikidka akhri aan u gooyey sidaasay tahay weli waxay nala daba joogtaa hawshii aabbeed nala daba joogi jiray haddaad igu amrayso doofaaradda gasho inaan raacsiiyo aabbaheed maya waxaad keliyaad fahamsiinaysaa sharafta naagta in ay muraayadoo kale tahay mar hadday jabtana in aan dib loo samayn karin Hello. maanta gabadhi journalistaha ahayd ayaa la farxumeyn lahaa aniga imaanayo intiinaas baartii waa tuma waa aniga booliska sidiisa buu soo daahaa hadda maxaa soo doontay in aad dacwo iga qoratid oo waajibkaa gudatid mise inaad sharaftaysid looga cayaar fiirsatid raakeesh wuxuu inuu suubiiro wuu suubiyey laakiin ha u malaynin in uu sharaftayda keliya ku cayaaray waxaad ogaataa sharafta ciidankao dhan inuu ku cayaaray
maanta dharka kaliya ayuu iga dhigay birina wuu i xoogi karaa hadduu bahdana wuu i dili karaa aniga waxaad ogaataa aniga ciidanka kama soo doonahay taageero sababtoo ay sharciga ciidankiina intaad dhowr leedeen waad gadataan 5 rubiya ayaa siisataan idinka dhan ciidankiina waxaa tihiin ayaa iska yar ayaga hor leexo ciidankiina iyo sharcigiina saakeesh wax aad ka qaadi kartaanaaba iska yar haddii aad sidaas u og tahay maxaad joornaalada ugu soo qortaa tuugada maad gurigaaga iska seexatid aniga sidaas ma samayn kari maadaama aan ahay gabar wadani ah waxaa igu waajib ah ilaa aan ka dhinto in aan qoro joornaalka arrintaasi waan fulinayaa dhibaato kastaba ha igu qaadato aniga sida ciidamada kale ma ihi oo sharciga ku ciyaara aniga labiskan waanu dhimanayaa laakiin ma laga yaabo raanaa inaan rufyaan u noqdo isbatoore bismaa noloshiisa wuxuu ka jecel yahay garaadadiisa haddii meel walba xun lugteeda aan geliyo meeshaas way nadiifsamaysaa kudha waad xiran tahay adiga waray isbatoore ma anigaad i xiraysaa soo aniga i garan maysid war adigu qofkaad doontid ahaaw maanta kadib qaylida waad daynaysaa isbatoore ushaan askarta qof walba oo aan afka ka geliyo qofkuu doonaba ha ahaadee hoos ayuu aaray ka sii deeyaa isbatoore bishmaa ma ahan qof kaftamaayo adigoo nin raga maa gabar gacan u qaadaysaa dhaqso dharka iska dhig mise waan ku dilayaa funaanad siib surwaalkana waa kaa siibi lahaa haddaysan inta gabdho joogi lahayn raaligeli iga raalli ahow idhagayso dacwinaan qor diyaaran u ahay war ani waxaad ii sheegtaan bismaa xalay wiilkay 3 saac ayuu soo xirtay waagina waa baryey ilaa haddana wuu la maqan yahay xaggee la jiryaa walaal wejigiisa haddaan fiiriyey waxay ila ekaatay in xalay si xun loo garaacay maxaad laamusan tahay maad hadashid maxaa kugu dhacay hadda wiilkaaga ma hadlayo raanaa maxaa yeelay hadalka aniga ayaa ka xiray abukaate warqaddii damaanadda waa inaad siidaa askarigan hadda wiilkaaga waad wadan kartaa laakiin markaad guriga geysid waxaad u sheegtaa canaantan canaantay inuu weligiis xasuusnaado haddii mar dambeetana dacwad laga soo qoro waxaad ogaataa wiilkaaga inaan lugaha ka jari doono waajibkaagu wuxuu ahaa isbatoore waad gudata adiga hadda waa markaygii adigu is ilaali aniga tayda ha ka fikirin ee taada ka fikir adiga aniga goordhow ayaan adiga kuu soo socdaa ogow
adigana waxaa ku roon ganacsigaad haysid inaad iska xirtid waxaadna ogaataa haddii aad aniga iisoo gacan gashid inaan aniga dhar kaa dhigo ayaan dhulka kugu jiidayaa ee sidaa ula soco अनूप walaasheeda maxaa ku dhacay أنا مركز أجلني هذه إيد لن يدحسها waryaa saaxiibow walaasheeda maxay la xanaagsan tahay gurigan eega xataa wuu xanaagsan yahay ma ogaan karaa walaasheedu waxay la xanaagsan tahay isheeg adiga ma ilowday inaan aniga maanta show lahaa adigana ay raaci lahayd oo igaraa lahaa waa iloobay walaasheedu waa iloobay aniga waxba ha i dhihin waa iloobay ee adigaa rabin marka horeeta inaad i raacdo idhegayso waryaa raamdaas sheekada way kululaatay waa ujeedaa marka aniga waxaan rabaa inaan sasabo adiga ila sasabiyaa mila sasabaysido saaxiibo adigane ila sasabiyaa wana waa inaan eegaas xun 24 saac gudahooda aan ciidda hoosteeda dhigaa war waxba ha qaylin bishmaa intaad ciidda hoosteeda dhigi lahayd waxaa kaaga wanaagsan siduu adiga sharafta kaaga qaaday adigana sidaas oo kale inaad sharafta uga qaadid bartaaf waa runtiis ninka haddaan sharafta laga qaadin dhimashadiis waxba nooma tarayso ninkaa waxaan u ciqaabi doonaa ciqaab oo weligiis ouna ka soo kabsan doonin casharkaas aan sii doonana shacabku way ka sheekay doonaan ano kartoonka ayaa guriga keenay yaabaaba leedahay adiga walaal adigaaba dadka u soo dhiibaye haddana waxaa leedahay yaa keena bokiskan aniga ma qofka soo dhiib akhbaartana soo gaartay run ayay ahayd hubkan faraha badan xaggeed ka keentay isbatoore biishmaa hubkan waan ognahay inaadan adigu lahayn laakiin gurigaada ayaan ka dhex helnay isbatoore biishmaa hadda si sharaf leh nagu soo rac maxaad sugaysaa ninkii raana ahaa dacwad been ah ayuu kugu soo oogay isbatoore biishmaa waryaa jacfar gacanteeda ayaad ku dhimanaysaa marka aad adigu dhimanaysidna gacanteeda ayaa sabab kuu noqonayso adiga ma aniga dilaayo adiga ma jacfar dilaayo hadda waa dareentaan u malaynayaa isbatoore bishmaa awoodaan leeyahay soo hore adiga iima dhihin dharka ayaan kaa dhigayaa laamigaana kugu jijiidayaa middaa waad samayn weysay wakhtigaan la joogo wiilkayga ayaa walaasha sharafteeda ku ciyaaraya haddaba waxaa lagaa doonayaa inaad badbaadid waddadii wiilkaygaad dharka uga dhigtay isla waddadii ayaa walaashaa dharka looga dhigayaa waxaan u malaynayaa wakhtigan in laga dhigo walaashaa dharkii qayli sida eyd u qayli wakhtigan waxaan u malaynayaa walaashaa sida eydii oo kale ay u qaylinaysaa dadka xaafaddana waxay leedahay badbaadiye wiilkayga markaad soo xiranaysay aniga ayaa badbaadiyey laakiin walaashaa qof badbaadinaya haba yaraatee ma jiraan
hadda fursad ayaad haysataa jacfar aad nin ku soo dishid waa inaad soo dishaa ka soo qaad anigoo dilay ka soo qaad anigoo soo dilay walaashaada meedkeeda ayaa gubtay adigana waad oonaysaa nasiibkaaga ayaa xun hadda inteed igaaga fakanaysaa وريا أنا قد بقى قد مسانين كاس خبطة يوم إذا كبحسن خبطة حتى أديك واحد نولت ما هذا فيش ما إنه قعمها كبح صدي هذا ذا شيء أدي آلة ند ذا شيء مركز ذلك أديك سود ذا شيء وأنا أبى القط كوسيا ورا أديك كلجا ما هن عيدا بدنا كل جري ninkaas kaliya idinkoo badan sidoo gacmihiina ugu baxsaday aniga arintaas ii sheeg war ninkan yaa u ogolaaday ciidanimada ninkan aad u jeedaan maba istaahile inuu guri waardiye ka noqdo waa ka xumahay maadaama uu bishmaa gacmahayga ka fara baxsaday waa inaad fursad kaliya isiisa adigo hal fursad oo kaliya isii waxaan kaa ballan qaadayaa bishmaa meedkiis inaan lugaha aan soo dhigo war adigu waxaad qaban kartida iska yar laakiinse anigu waxaan ku sheegayaa tuugadeena annaga sharci ayaa noo degsan sharcigaasna wuxuu dhigayaa ninkii cadowgeena inaan dilno hadduu dushana soo aadiyana inaan beerka xabad u gelino marka hadda adiga waxaad istaaysaa wax lagu dilo war siday noqotaba ninka meydkiisaan doonaya anigu waxba ha ka baqi mudane raanaa ninkaas meydkiisa berita joornaalka ka akhriso
ورسود دقا كان واقارقي بسماء ميلاهن كما دير على راضي سدك دقا gaariga ma saarana meelahan kama dheera hala raadiyo ninkaas yuu idinka baxsani نكان هذا بقلنا nolosheeda dhan ayay baabi'iyeen waxayna iga dhigeen nin tuug oo baxsaday aniga ma dhaafayo adeer kuwaas ma dhaafayo aniga hadda haddii dhaaftid anaa badhaafeenin kuwaas hilbood busteeki camalan u shiidaa busteeki dhul camalna anaa u xaaqaa laakiin igaarkee hadda waxaa ku waran inta inaa iskaga xaluulatid haddii askartii ay ku imaadaane waxaa iska dhigaysaa dhaadhaan ina aqli yeelata marna aa u muujin
waayahay waa salaaman tahay waa kaa qaaday ninkii maskaxdiisa ma soo noqotay haa way u soo noqotay kaalay soo fiiri soo gal gudaha fiiri ninkan waa dambiile halee qabto sugba isbatoore sug haddii aad dhinti madhee sidoo lafta aliisii le miya ninkaan maxasbi iyo saleeyoskaa galabsaday an ishaagba anaa adoogiis ahe ninkan aad boolaa leedahay wuxuu dilay 3 dable iyo 2 nin oo isbatoore xabsigana wuu ka soo fakaday magaciisana boolaa ma aha waa bishma aabo ninkan muxuu bishma ii leeyahay magacaygu waa boolaaye waa runtaada marka hore saldhigana geey kadib ayaad sheegaysaa magacaada inuu yahay bishma raalli ahow askari ninkan ma xiri kartid maxaa yeelay weli daawo ayaa u socoto doctor adigu waad la socotaa this man he is a criminal I'm sorry isbatoore because ninkan waa jiran yahay mana jira loo dhigaayo this man inaa la xiro sorry isbatoore adjini a isku ridi ninkan inaa saldhiga geesid heehaatee kaa tahay macnaheegana waxa waa impossible because he is ill he is jira very much then waxaan kuu sheegayaa ninkan inaa isbitaalka ka wada karin yes you understand ishi baxarkan ku iri isbitoore ani ayaa cayuumin mago shaarbahan isku siri ani caani gadoole igu ogtahay laakiin aan waa ku gambanay jaamacad 12 sana la soo dhigtay ingiriis carabi wax la soo dhaafi ma jiro marka adiga waxay yeelaysaa shalimaanta laan la kiruudka soo baxday waxa rabtaa ingiriis anayna ay waabsatay marka yeelay taas waa ka baxsatay hadalkaad aad ayuu u fiican yahay waan ogahay ninkan inuu xanuunsan yahay maxkamaddana ay xukumi karin laakiin sharcigu wuxuu dhigayaa ninkan in la geeyo isbitaalka booliska waadna la socdaan u malaynayaa sharciga BALLB ha ninkan maanta kadib waxaa la geenayaa isbitaalka dawladda meesha ayaan lagu daaweynayaa la soc sidaas ma ka baxsanino ninkaas boola ahaad ama bishma annaga nafsadeena halis ayuu u yahay ninkaas haddana waxaan soo maqlay isbitaalka dawladda in lagu wareejiyey ninkaas aabba waxaa laga yaabaa ninkaas inay maskaxdiisa u soo noqotay oo arrintan annaga uu nagu dhibaayo war xataa hadday maskaxdu u soo noqotay annaga waxba nagama qaadi karo waa nin soo baxsaday oo weliba askarta magaaladoo dhan raadinayso haddii annaga uu gacanta noo gala ma dhaafayno haddii sharcigu gacanta ku dhigana asna ma cafinayo adna feerta dhexdeeda faayo fadhidaaye waa ku fahmooba anfidsa shaalka ayay cunto cun ani cunto ma rawi adiga laba biri dhan wax maba cunine bishmaa la'aantiis wax ma ii dhadhamaayo guriga hala baaro maxaa dhacay isbatoore bishma aaway bishma yaa lahaa bishma ninkaad boolaa dhahdeen adinku waa dambiile oo xabsiga ka soo baxsaday adiga waa qaldan tahay isbatoore boolaageena dambiile ma aha geel camalaasu dheeryahay asiga laakiin aqli bartiisa ma laha
nin dharkiisa gasha karin sees dad u dili karaa asiga war ninkaas hadduusan bishma ahayn muxuu isbitaalka ugu soo cararay tali ma joogo ninkaas guriga labadiina waxaa dan idiin ah inaad ii sheegtaan bishma meesha uu jiro haddii kale labadiina saldhig ayaan idin geynayaa isbatoore ad malakalmeeda dusha kaa riixooya adiga waxaa dharka usoo gashatay miya maniyaalka dadoo inaa imaadido duqooshinka dadoo aad aruursatid ad bishmaha dis xasilkoo kaa dhuuntay dhega awaareed unug anugu naqanine meese jir waa taqaane soc bursa dabaalyaw aniga shaqadeeda ha ii tilmaamin nin dambiila ninkii qariyana sharcigu wuxuu dhigayaa ninkaas inuu dambiile u yahay haddii aan rabana kulligiina waa idin wada xihan karaa yaa maxaa sugoosahe mana aruursatido khashan camal leenahay unuke oy koofii wasaq intidna aruursanaan waxaan kuu sheegaa bishmaha dis dambiile yahay qofkii dambiile ka dhigi ma ogtahay adiga askartiinaa ka dhigtay dambiile dambigana waxaa usiga lugta u geli kuwa udinkanigu labanoo rufyaanin ah halahaasna waxaa u keeni rooti aku margadee raanaa aska soo horjeestay igaarkee sharaftiisa iyo sumcadiisana ma gadahayo haddii wax aa xirtid le kaa maqan yahay adoo bax raanaa soo xer usaa juuniyi dambi iyo wax ka badanba galiye malyan qof waa dili 2 malyan qofna nabturuqas sii 30 gabdhana waa gacnay aw isbatooro cabsi maaniga keenaysaa ma ogi dambiyaal badanoo oobiga lagu qorinaa jirtaa idinka waxaa umaleeyaysa inaanaga aqli badan tihiin run aragtiin inaanu dadawooshin run haddii la dadawoolane lugaha laga kasaa bishmaa geesinimada calooshiyaa wartiisas kala soo baxay igaarkee waa laga dhigti farmaqaniina waay waxaasna u socdaa aarsasho mana niiga heeraaye waa nii bursaha adiga iyo wixii kaa dambeeyaba dhammaantiina askar iska dhaaf gulwada xataa kusoo dara dirti aw talii ma dhagooloodi feelkan been ma ahee gobol run maka heleys isbatoorihii hore oo la beddelay been iskaga beegi buuggan aad haysatid taliye hadda feelkan ka fatishba maku qoran yahay isbatoore bishmaa walaashiisii loo gacneey maku qoran yahay fiirib wax noo dhiman malo oon ugula suubin unug indhaheegaan ku arkay kaas anaaba ka faktida haddii oo dacwo ani aan ka bixi lahayna waxaa maka cabsaday naftirka inas nabturuq isiyo barakalaawahaas dagaalkiis derbi kugu soo tumaa garoon cimrigaa raaga geel dhalaayas ku tusaa aa la yidhi kii tuugga ahaayoo la rabay xabsiga inaa la geeya bannaankaas raaxa iskaga wareegooyaa kii daacadda ahaayoo dulmiga wadinoo dowladdiis u shaqeeyahayna intiis karooraa la bursooyaa arrintaa ma dhici kartaa xaq miya walaasheedu waxaan kuu ballan qaadayaa walaalkaaga inuu kuu aari doono bartaab
هيدلي مرحبا كفرة هالو xafladda dhalashadaada waxaan hadiye ahaan kuugu soo dhiibay walaalkaaga meydkiisa hadda hal gacan ayaan kaa gooyey hal gacan ayaa ii dhiman mar dhow ayaan kaa goynayaa ogow waa ku salaam isbatoore bishma askarta gacmeeda ayuu ka fakaday middaas ceeb ayay u tahay askarta bishma ciidanka dhan baa raadinaya maanta dii la qaban bere waa la qabanayaa laakiin adiga maxaa la fajacsan tahay ninka walaalkay ayuu dilay waa la socdaa adigoo la socda ayaad kursiga raaxa saga fadhidaa raaxada aad ku fadhidid waa in bilad sharaf lagugu siiyaa bilad sharaf waa lay siinaya mudane raana laakiin waxaa lay siinayaa maalintii ninka aan dembiga laha aan ka badbaadiyo dil toogasho ninka dembiilaha aan ka qaado daaha aana ku xukumo dil toogasho laakiin inta la xukumin ka hor waxaan rabaa sida dameerka loo garaaco ayaan rabaa si ka daran inaan ninkaas aan u garaaco dembiilahaasna wejigayga hortiisa kama dheero isbatoore hadalka iyo ficilka labay kala yihiin waxaan kaaga digaa libaax kaa jiifa ee isku soo kicinin waxaan kuu sheegayaa taxsigii duulimaadkiisa bata sidiisaba wuxuu ku dhacaa maraq kuleel ah ee sidaa la soco waa inaad ka daysaa dacwada beenta aad aabbahay la daba taagan tahay ma og tahay aabbahay dadweynaha hortiisa in uu sharafka leeyahay riyaa aabbahaaga ma nabsanooy ee waa wax jiro aabbaha shicibka xaggooda wuxuu ka yahay nin sharaf leh laakiin sharciga xaggiisa wuxuu ka yahay nin dembiile ah riyaa hadalkan waxaan kugu sheegayaa beritool haddaan damco aabbahaaga inaan soo xidho anigana wax khalad inaadan iga fahmin jaceylkeenana inuusan sidan ku baabi'in maxaa ii amiin la'dahay adinka askartiinna qof walbaa sharaf leh sharaftayaad ka qaadaan haddana waxaan ogaaday aabbahay agtaada qiimaha uu ka taagan yahay qof aabbahay ka soo horjeeda xiriirna ma dhex mari karo ee marka duuduub aniga igu dhaaf nabaday
maxaa dhacay aabbo oo la fikirsan tahay isbatoore mayu waxaa laga yaabaa inuu arrinteedii fahmay wuxuuna rabaa bisma inuu dil toogashaa ka badbaadiyo oo aniga dil toogashaa ugu xukumo middaa waxba ha ka fikirin aabbo aan aragno wuxuu samaynayo hadduu isku dayo falka inuu sameeyana waxaan ku samaynaynaa isbatoore bishmaa waxaan ku samaynay oo kale war waxaan rabaa isbatoore mayu tii bisma aan ku dhigna ka daran in lagu dhigo sidaasay noqonaysaa aabbo maxaa kugu dhaca mayuu ood la murugsantaha adiga wax saasay ma jiraan waa fahmay adiga iyo beriyaa isdagaala umaleynaa ilaa iyo xal arrintan ayaa ka seexa weyse miya ii sheeg waa idin salaamay soo dhawow beriyaa adinka sii sheekaysta anishaaha idinkeenaa manyu iga raali ahaa manyu aabbahay runtiis waa ogaaday haddana madaxaada ayaan gurigiisa ugu soo tagay riya waxaan u maleeya wax khalad inaad samaysay waayo nolol heer sare ah ayaad ku nooleed adiga laakiin haddii aad ii imaaday waxaad ku noolaanaysaa nolol kulul anigu waa ogolahay nolol walba inaan kula qaybsada adiga ana makaankiisa u dhaafee meel iiga macaanaan heliyo oo miirkeyga biryahaaway ha qaylinin raanaa sharaftaada gacanteeday ku jirtaa weliba annaga inaad sidaa noola hadasha ma aha waa inaad si sharaf la noola hadashaa war adiga iyo walaalkaaba riyada aad ku jirtaan iska daaya gabadhayda ayadoo nool ayaan gubayaa intii gabadhayda walaalkaa uu guursan lahaa adiga boota haysaa raanaa waxaana tahay shabeel shabaq ku jiro shabaqa ka dhex qaylinaaya laakiin aan waxba cuni karin gabadhaadana walaalkay mar hore ayuu guursaday aniga iyo briya mar hore ayaan isguursanay waryaa hadalka badan iga daa ama samaar ayaan ku qabadsiinayaa aabbaha cun haddii aad jeceshahay inaad qaf dishid keligiis ma ahee labadeenna dil ninkayga intaad dilin ka hor waa aniga inaa dishaa war anigoo walaalka ah maa sidaan ila hadlaysaa ii sheeg saqajaan ee xunta ah war adiga inaa walaal lagu dhaho maba istaahishid walaal waxaa la dhihi karaa ninkii seedigiisa ka xishoodo nafsadiisana ugu sabri karo laakiin adiga walaal ma tihidee waraawaa tahay oo ninkayga iiga dili rabtid maxaa sugaysaa nugu dhifo war dhimasha haddaad rabtid hadda ayaan ku dilayaa war maxaad samaynaysaa idaa aabbo gabadhan sharaftaada ayay candhuuf ku tuftay waan dilaya aniga aamus bannaanka u bax bannaanka u bax hadalkaa waa run baartay anigu waa layga raayay waalid si kasta oo u xumaado marnaba ma arki kariyo gabadhiisa oo asaayad loo saarayo lacag intaan ka daba ordaya ayaa indhala-aan igu dhacday laakiin hadda indhaha ii furmay wiilkayga khaladka uu kaa galay aniga ayaa xaggayga wax walba uu kaa gala kaa raalli gelinaya
filimkan iyo filimo kale oo ku xiiseeyay waxaad ka helaysaa indhafilms.com. laakiin dadweynaha afkooda qunful laguma dhifan karo waayo dadweynaha waxay leeyihiin raana gabadhiisii way ka carartay gurigii waxayna guursatay wiil ay jecleed filimkan waxaa dib haween loogu sameeyey indhafilms.com. anigu waxaan rabaa oo keliya sida caadada iyo sharafta noo ahayd in gabadhayda guurkeeda loo dhigo bas walaalkaana asigoo labiskii arooska wata waa inuu gurigayga yimaadaa dadweynaha hortiisa waa inaan gabadhayda ku siiyaa sidaas ayaana sharaf ah ma yaraana adiga waxaa tahay nin dambiil ah aniguna nin askari lagama yaabo marna inaan gurigaada aan imaado qofku dembiga kuma dhasho duruufta iyo wakhtiga ayaa qofka ka dhigi kara dembile anigu waxaan ku ballan qaadayaa gabadhayda markii guriga laga guurinaayo maalintaas aniga ayaa sharciga isu dhiibi doona middaa ayaa dembigay ku dhaqmi doona mayu qofku waa gafaa waana ka soo noqdaa beriya aabbeed ha raacdo ii kaal gabadhaydii maya ha ooyin soo raac soo bax baaro aniga halkan waxaan kugu yeeray adeer iyo ayay inaa raacdid waa gobol ku laabataan maxaa yeelay darteeda inay dhib idin gaaraan ka baqaa maya boola adiga keliga inta ma kaaga tegi kari la'aantaana ma noolaan karo adiga kuu qabo adigane maxaa moodaa inaan aniga aan ku jecleen hadalkayga yeel waddo walbo maraayo waa lay ugaarsanayaa nolosheedana waa xarshi madax jaceylka in laysla noolaado keliya ma aha in laysla dhintana waajib ayay ku tahay hadda iska bax calafadaan isku leenaa waan is arkaynaa मैं कहता हूँ रुक जाओ हट जाओ
maxaa dhacay idaa halkee ii wadataa adiga gacantaadu waa dhiigaysaay xabada igu dhacday soo bax isbitaalkan ku wade maya isbitaalka ma aadi kari ani askar ay daba taagan ma aadi kari waayana kan gurigan ku wadaayay rajadeeda iyo nolosheeda malag ayaa dhex taagan ilaa iyo raanaha iyo xulufadiisa aan ka dilaayana ma neefsanayo waad xiran tahay maya isbatoore ilaa aan raanaha ka dilo sharci i qaban karo ma jirto waan ogahay in si xun lagu galay aadna u socod aargudasho laakiin sharcigaad meel ugu dhacday dil toogashana adiga ayaa isu keenay dilka aad sheegaysid diyaaraan u ahay laakiin marka hore waa inaan dilaa raanaha iyo xulufadiisa sharaftayda iyo sharafta walaasheeda oo lagu ciyaaray markaan ka gudsado dilka waxba uma arko sharcigan aniga ayaa isku dhiibaya istaag bishmaa idhigayso aniga ii aamin adigana waa inaad sharciga isku dhiibtaa waxaan kaa ballanqaadayaa in xaqaada lagu siiyo labiska askarta waad ku cusub tahay isbatoore laakiin aniga si fiican ayaan kaaga aqaanaa sharciga wuxuu yahay xaqayga maad siinaysaa sharcigaagana aniga wuxuu iga dhigay nin dambiilo ahoo baxsad ah dhibaatada ii geystayna ma ahan mid aan weligayga iloobi karo adigana waxaad ogaataa manyuu walaasha in ay dhiban tahay naageys dhibka uu ii geystay ilaa ay hadda ma kuu sheegin waa kaa qariyey laakiin haddaan kuu sheegayaa ninkan walaashiis waxaa loo kubsaday badbaadou walaashaa badbaadinaya ayaa walaashiis loo kubsaday mala socotaa middaas adiga foolxumada aniga igu dhacday ma dhegaysan kartid adiga dadka xaafadda hortooda ayuu ugu dharbaaxay dharkana igaaga dhigay mala socotaa adiga dhegayso walaalkay aniga waxaan ahaa joornaaliste wax walboon ku qoran awood ayaan u leeyahay laakiin ayada oo middaas igu dhacday ma isdilin aniga laakiin ninkan walaashiis waa isceli weyse waana isdishay aniga go'aanaan gaaray shaqadan booliska waan iska joojinayaa adigaan ku raacayaa waxaan kasoo argudsanayaa qoladii isku dayn walaasheed inay farxumeeyaan adigoo ciidan ah ayaad ka argusan kartaa guri weyn ah xanaaqan adiga naagteeda doofaarkaas xun raana intaan la shaqaynayo adiga lacag waad ka dhargaysaa bas bishmaa oo keliya haddii aan soo qabto waxaad ka dhargaysaa lacag dollar iyo darham ayaad ka dhargaysaa gacmahaada jijilma ayaan kuu soo gadayaa dhega fiican ayaan kuu keenaya oo dahab ah katiinado badan ayaan kuu keenayaa weliba gurigaada waxaan kuu soo dhigayaa alaab remote ku shaqaynaay baabuurkaada gurigaada maxaa albaabkaada hay nasiibaan leedahay be markii batoonka aan riixday albaabka waa furmi sanduuq oo lacag ku jirana wuu soo baxay kan aniga baxno noo keeno abo abow waana gacan galay kan ayaa ii keenay maskiinkii bishmaa masigadii beenta aheedood mooyaa ugu buuxi heesi tumoogeed iyo haadiskeedaba maanta adaa lagaa rabaa saacaddan laga bilaabo waad xiran tahay ii qabta kushamuuma isbatoore ma garanaysid waa kuu soo laaban doonaa
aha aniga waan ku garanayaa adiga raanaba asagana waqti dhow ayaan u socdaa wadaay wariyaha isbitaar ima garanaysid anigana gacanta iga fura wariyaha aniga ima garanaysa madaxa iga dambayso iga fura wariyaha bimanyu iga furtaa xeriga iga fur wariyaha adiga wacliyo iga furtaay bastariyo inaa xun leh iga furtaay iga fur hal ayaan ii arkayaa iga fura wariya aamus iga fura wariyada iga fura way idin roon tahay iga fura haddii kale waa idin tiliyaa iga fura waryaa adiga miyaa xasuustaa maalinta adigaa guushi watay laakiin maanta anigaa guushi wata shabaqaad aniga ii dhigtay isla shabaqaas oo kale ayaad maanta ku dhacday aniga waatii hore ayaan ku dhahay haddii aad dhimanaysid gacmahayga ayaad ku dhimanaysaa maalintaas anigoo gacmahayga xiranaad i garaacday laakiin maanta adigoo gacmahaaga furanan ku garaacaya iga badbaadi waa ku barya iga celi ninkaan iga celi muku badbaadiya mii daceehay haddii ku badbaadiyo bishma cafi waa ku baryaa cafi waa ku baryaa bishma cafi uma laawanayo mar kale cafi waxaanu waa been ma dhici karto sheekadan waa sheeka la soo dhisay ninkaani shil kuma dhiman waa nin la dilay war anigu waxay ila eg tahay in inspector mayu uu arrintan ku lug leeyahay sheekadii aan anaga isbatoora bishma aan ku samaynay isla sheekadaas ayaa maanta ninkaana lagu sameeyey war anigu waxba iima kala duuna mawjadda badda hadday kor u kacdo cirka sooma taaban karto bishma iyo isbatooraha mayuub waa inaan gacanteenna aan ku dilin annaga intaanan dilin ka hor waa inaan gabadha magaalada ka dhoofiyaa saaxiibkayga sangabuur deggan oo bisnesku naga dhexeeyo ayaa hindiya u soo socda wiilkiisa ayaanna ku darayaa saaxiibtinimadii hore nooga dhexaysana way sii dheeraanaysaa arooskana waan soo gebagabaynaynaa berri ayaan maharkooda samaynaynaa markii maharka uu dhammaadana adigu waad raacaysaa sangabuur aynu ku aqalgelayaan halow beriya ayaa kula hadlayso riya maxaa kugu dhacay maxaa la naxsan tahay aabbahe wuuna wada qayaamay wuxuuna rabaa labadeena inuuna kala geeyo yaa haa waa runtayda aabbahe saaxiibkiisa oo sangabuur degan wiilkiisa inuu igu daro oo sangabuur la ii diro ma anfici karto miigu cayaaraysaa anigu ma aqaano wax aan sameeyo gurigan kama soo dhex bixi karo aabbahay afarta dhinac ciidan iga dhigay riya aabbahaagu wuxuu rabo ha sameeyo labadeena ma nagala geyn karo raana farxadda maantay kugu eg tahay gabadhaada iyo wiilkaaga aniga afduubtay
gabadhaada wiilkay jecleedaan siiyey laakiin wiilkaaga nolol iyo geeriba midaad ku heli lahayd taleefon iga warso yaa ku heli see kaa naqati hay wax ma soo ogaateen maya raana guri walbaan ka fiirinay waana soo waani halow ilaa iyo hadda wuu nool yahay wiilkaaga ranaa laakiin noloshiisa halis ayay ku jirtaa wiilkaagu wuxuu ku xiran yahay geed aan xaafadda ka sameeyey baabuurkan waxaa saaran remote control 10 daqiiqo gudaheed haddaad ku tagtid meeshaas remote-kaas aad riixdidna wiilkaaga wuu badbaadi karaa dhaqsee 10 daqiiqo gudaheeda xaafaddaas ku aad wiilkaagana badbaadi haddii kale wiilkaaga waad waynaysaa waar iga leexda naagaas wiilkay waa kuu soo socdaa anigaa ku badbaadinaya waxba ha cabsanin war ka bax ii banneey ha ka baqin anigaa ku badbaadinaya anigaa ku badbaadinaya anigaa wada remotkii tartiib waa kanaa remotkii waa iga dhacay waa helay anigaa ku badbaadinaya tartiibso waa kanaa anigaa ku badbaadinaya tartiib ha cabsanin नागेश नागेश doofaaradiinaan xunxun ma astaahishaan inaad ii shaqaysaan aniga ma nin xun baad ii soo qaban weyseen war maxaad tihiin adinka war ma bishmaa baad ii soo qaban weyseen ilaa hadda dadaal weyn hayna aniga war wax dadaal aad haysaan ma jiraan laakiin anigaa gacantayda ku soo dilay meel kastoo galo ana taleefon ayaa ku yimid halow aniga ayaa rabay wiilkaaga inaad gacmahaaga aad ku disho hadda adigay ku joogtaa wakti walba saacad walba ogow aniga inaan ku daba taaganahay xayawaannimadaada remoodka loogu talagalay bamka markaad isticmaalaysid
wuxuu qarxiyaa mooye wax ma dimiyo adigana dhiiggaaga kacsanaa malaynaa maalink walaasheeda dhimanaysa dhiiggaygan sidaanoo kale u kacay raana bishmaa meeshuu joogaa lasoo ogaaday raana laakiin meesha ma tegi karna halis waay waayo afartiisa gees askaraa joogto baliis iska daaye militarina ma celi kara aniga wiilkayga soo u dhintay hal ulijeeddo keliya ayaan leeyahay waana bishmaa sidaan ku dilin lahaa raggiinoo dhan waxaad qaadataan labiska ciidanka waxaadna aadaysaan meesha bishmaa joogo maanta asigaa maqan ama aniga filimkan iyo filimo kale oo ku xisigaya waxaad ka helaysaa indhafilms.com filimkan waxaa dib haween loogu sameeyey indhafilms.com